xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaale iyo wafdigan uu hogaaminayo oo isugu jira siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahan ayaa sheegay inay ka qayb galayaan shirarka nabadeynta ee deegaanka Ceelaf Weyn waxayna mas'uuliyiintani baaq u direen bulshada walaalaha ee ku dhaqan deegaankaasi. Socdaalkaygan wuxuu daaran yahay inaan ku biirno oo ka mid noqono dadka u gurmanaya inay damiyaan shaqaqadaas maadaama ay maanta Soomaaliland ay isugu timi shaqaqadaas 3 sano socotay qaranka dhibaatay ku noqotay ehelkii halka wada deganaa dhibaatay ku noqotay waxaan rabnaa in insha Allah maadaama maanta uu waftigii madaxweyne ku-xigeenka hogaaminay ay tageen maadaama loo xulay maxaan ku raadayay creamkii Soomaaliland haday wadaad tahay iyo haday oday tahay ay meesha tageen waxaan maxaan ku raadayay aanu doonaynaa insha Allah in hawshaas soo afjaranto message kaanu direynaa wax weeyaan xabada hal joojiyo miiska wada hadalka hal la yimaado hal la wada hadlo daminta shaqaqooyinka muddo badan soo noqonayay Ceelaf Weyn ka dhacaya oo runtii dad badan oo reer Soomaaliland oo dhan ka kooban yihiin oo aan babaxday culimo leh wax garad leh dawlad leh ujeedada ugu weyn anaguna halkan shirka jiraad u qabanaa waxa weeyaan inaanu ka mid noqono ergooyinkaas oo halka aanu hawsha damiska ah ee ummadda Soomaaliland oo dhan isugu tagtay aanu anaguna ka mid noqono isagoo xogayaha baarlamaanka lagu hogaaminayo dib badan baa halka ka dhacday way soo noqotay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay tii ay ku soo afgo'i lahayd tan noqoto sidii bahasha loo soo afjari lahaa de Soomaaliland oo ma isugu timi ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay dadka u soo hawl yareeyo arrintaana maanta laga gaaro nabad colaad wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta